dunida baaqaanu diray haddaanay jawaab ka bixin bilaaw haddii geliyo baaba iyo colaad ninkii boholiyo qabo haddii lagu yiri badhool badan baa halka ku jira biyahaniga iskale bara afkaaga bilow ingata bobsi qoraalka akhriska buuga bayaanu yiri bacda jaxa qada ra'sa hakaba ma'na wahaya dadku horta xirada waqti tood anoo yar oo iskuulka dhigto oo dugsiga dhexe dhigto ayaan horta inaan heesi karo oo aan fanaan noqon karo oo heesi karo waa aaminsanahay waxa jirta xilliyo oo iskuulka fasal la isugu baxo fasal tartan suugaanad maaragtay ardayda la isugu keeno aniga fasalkayga taal dhigi jiray hoose dhexe yaqshid aan dhiganay fasalkayga ana lambar 1 u ahay oo qayb gali jiray sax kadib guriga marka la xaqaayo alaabta marka la dhaqaayo ku dhaqi jiray guriga shaqada guriga marka qabanayo heesan ku qaban jiray marka fanku wax ugu abuuran oo ahay laakiin rasmi ahaan marka la dhaho adiga 99kii 2000 u ahay fankayga horta sideedaba aniga waxaan ku bilaabay wadaniyad waxaan ku soo hagaagay xilli dalku burburay oo xaaladu adag tahay oo dalkii laga qaxay oo dhibaatooyin fara badan ay jiraan aniga horta la kowsaday xilligeygina waxay xilli wacyigelin oo maxaa la yiraahdaa dadka laga wacyigelinayo qabyaalada iyo dagaalada sokeeye xilligaas aniga aan la soo jaan qaaday way jiraan heese jacayl oo aan qaaday laakiin marka loo fiiriyo jacaylka iyo wadaniyada badan horta heeskii igu horeysay oo waxay ahayd aan qaado riwaayadan waliba ka qaaday riwaayadii igu horeysay heeska ugu horeeyay isku mid waxay ahayn hal riwaayadaas oo la dhihi jiray talo waa nabad waxay ka hadlaysay xaaladda markaas jirtay dalka maaragtay wacyigelin ahayd waxa sameeyay Abaan Mustafa Sheekh Cilmi laba heesan ku lahay hees kamid oo riwaayada magaceeda lagu soo xiraayo ahay adduun tala lagoonka qorshadeer laga dhigaa xumaan taa laga tifaa bulshada aan kala tagayn in walba tii uu wato in badan ka tanasula todhexe la isugu yimaadee talawa nabad waaye ilaahay ku toosi tubta toosan heeskaas ay ugu horeeyay wala yaab horta heeskan markii aan qaaday horta aniga fan kaliya saxaafadan waa ka soo shaqeeyay wariyana waa soo ahay waxyaabaha ugu kalifay heeskaas inaan qaadana waxa kamid ah saaxiib ahaanshaha iyo dhawaanshaha isku mehnada aan noqonay saxaafada oo u damqaday oo aan dareemay runtii tacadiyo xoog leh inay markaas jireen heeskan marka anaga waxa ugu talagalnay aniga abwaanka sameeyayba inay noqoto heesaha wadaniga ah oo dalkan la isticmaalo subax walba idaacadaha ka soo galo oo bulshada lagu wacyigeliyo in wariyaashu ay yihiin waxa kaliya ugu qiimaha badan maanta hadii aad gurigaaga ka soo baxdo adartada idaacada furin oo aadan dhageysan ya warninkii hela tala wacan hele macnaha ma noqonaysa barnaamijka soo baxdid marka muhiimada gaarka uu leeyahay qofka suxufiga ah bulshadu inay garato ay ixtiraamto ugu talagalna heeskan laakiin heeskani kadib wuxuu noqday hees tacsi ah oo sheeg saxaafadu waxaan ku walaal iska dhaafa oo ii amaan galiya dad tacsiye ku dhigaysan because aniga waxaan ugu talagalnay in adinka leedin ku xurmeeyo heeskan laakiin aniga yaan hada marka la soo saawiriyaa la dilay aniga laftirkeyga oo maanta yaa dhibaato gaartay inaan dhahan gaaray أنا مركب مو قلت لك قال إن تعسين نقطة لك وحين وحكي لي صحافة الضلاد هاي وياضو أي استعماشه مرة والبنا برشة أي صباح ولا بإذاعة كبحد إلا يساوي الصباح والبيع بيجرين إنك وقتك هذا إسبدلي أسوقانت نوعيك الله استعمال لكن هذا وقتك اللي تهاجيها هاس كوريها حق دور وحلا وقلت لك قال إنه نقض وعي قلنا برشة صحافة إن صحافة إلاليان واحترامان هو حمرك الوعينا مركز تنواشيجا إذا عذوه هاس كان معها تعسي وهاس وعي قلنا وبرارجن إن برشة صباح والبود داين إيجا أي وتهاي احترام كذا شيء هذا صوب بربارة يكون أنت بصبح ولي بين الجيستان إنه وريوه وليه هاي احترام قارة سيداس إنه أفهمان يسون أفهمين كلية مركل الدلو أما مركل يلا داوعه إنه كلية أساس حتى
maaha taas kaliya waxaan aad u jecelahay welina aan aad u xasuustay heeskii badda wuxuu ahaa wacyigelin heeskaas haddii uusan jiri lahayn maanta awoodan iyo waxaan intaan maxkamadda la aadinan anaga aan kasii hordhacno heeska la sameeyay heeskina markuu wuxuu gaaray Soomaaliya oo inay hurdada ka kacdo oo badeeda iyo taaka kamid ah dhulkeeda inaan la qaadanin heeskaas markuu wuxuu kamid yahay heesaha aan ku dhaarto aniga dunida baaqaan u diray haddaan jawaab ka bixin bilaaw hadii galiyo baba iyo colaad ninkii boholiyo qabo hadii lagu yiri badhol badan baa halka ku jira biyahaniga iskale heeskaas marka waa heesan aad u jecelahay aad iyo aad sax way jirtaa taas because waayahay dambe oo dhan wax awdiya la baxay muuqaal ma sameynaynin dadku waxay yaqaanaan dhagti muuqaalka xoogaa waa laga yaabaa muuqaaladii heeska badda dambe hadda inuu dadka aad u xasuusiyay caasho waxay tahay hadda ay yaqaanaan markii ay aad u daawadeen laakiin wixii hore oo dhan wax ku bixi jireen maqal ay dadweynaha ku gaarsiin jireen xil adagna la soo maray